asxaabta sharafta leh ku xiran channelka Maxamed Cabdi kusoo dhawaada galabta cashar cusub oo ku saabsan iswardhigga labada messenger ee WhatsApp iyo Telegram. WhatsApp iyo Telegram waa laba messenger oo la isticmaalo messagada la isku dhaafsado dunida gaar ahaan Soomaalida aad u isticmaasho maanta WhatsApp-ka oo aad u taqaano. Labadan WhatsApp siisa banaanba waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha aad kiimika loo adeegsado ee la isticmaalo. Waxay ku jiraan labadan messenger waxay ku jiraan Play Store-ka waana lagala soo degaa sidaynu arkayno imika inoo muuqata WhatsApp iyo Telegram labadooduba waxaa laga heli karaa Play Store-ka waana la isticmaalaa aad iyo aad baana loo isticmaalaa 100,000 oo milyan ayaa download gareystay sida ka muuqata Telegram 1 bilyan ayaana download gareystay buu kaleey Play Store WhatsApp-ka waa marka Play Store-ka la joogo taas waa taa marka waxa weeyaan 4.4 weeye marka leegayo WhatsApp-ka xaga marka leegayo Telegram-kana uu 2.4 ka yahay marka mobilada Android-ka hadba sida mobilkaaga amaba app-ka aad ku shubanaysa qaabku yahay ayaa lagu xisaabiyaa yacni rashiyada noocaasa marka haddaynu ku dhaafno Play Store-ka inay ku jiraan iyo halkay ku jiraan in laga soo degi karo halkaasu inay tahay Play Store-ka iyo dhammaan browserada haddana ku dhaafno Play Store-kooda aanu galno sideeda banaanba labadan Telegram iyo WhatsApp mar haddii yihiin laba messenger oo la isticmaalo messagada la isku dhaafsado Telegram oo aynu arkayno inuu midabka buluuga yahay green-kana uu yahay WhatsApp waxa muuqata Telegram inuu yahay inta badan uu furan yahay oo uu waxa sheegay free open source uu yahay oo runtii aan la oran karin cid bay u xaniman tahay iyo cid baa maaragtay gacanta ku haysa hase yeeshee ay tahay free and open source inay tahay waana xor waana il furan oo laga faa'iideysan karo halka ay ka tahay WhatsApp ku yahay proprietary app uu ka yahay cid iska leedahay cid buu isaga xiran yahay haddaynu eegno dhinaca wada hadallada iyo messagada iyo waxyaabo noocaasa waa safe conversation weeyaan aad buu adkeeyaa Telegram-ku oo messagada wuu dhowraa waanu ilaaliyaa halka kan kalena uu markaas iska furan yahay oo markaas qofku uu taabto uu daf oranaya markii message-kaaga kan laakiin waxa la yiraahdo encryptable yahay oo markiiba sirtaada lagu adkeeyo waana lagu xidhay haddii groupada noqoto waxa isticmaalaa Telegram 200 oo group baa lagu isticmaali karaa halka WhatsApp groupna lagu isticmaalayo quriyaata content group oo ka kooban 260 qof groupkiiba haddii 270 ka dhig sida sharciga kuma diri kartid waxa la isugu diri karaa Telegram ma dhammaan faylasha kooda ugu badan sida waxa kamid ah oo kale in la isugu diri karo application waaweyn iyo documentiyo aad iyo aad u waaweyn ama ha noqdaan videos aad u dhaadheer 1GB oo kale ayaa tusaalahan aad u diri kartaa aad ku diri kartaa Telegram-ka halka aad WhatsApp-ka ku diri karto qoriyaata xagga marka dadka wax dirayso image yar iyo maxaa sheegay video kooban oo aan lengthy ahayn taas waxa weeyaan waxyaabaha uu daciif ku yahay marka la eegayo dhinaca isbarbardhigga uu kaga hooseeyo Telegram-ka iyo ku kala duwan yihiin WhatsApp-ku oo Telegram-ku wuxuu qaadayaa 1GB oo kale ayaad ku diri karaysaa laakiin kan kale WhatsApp-ka messenger-kaas WhatsApp-ka waxaad ku diri kartaa sawirro kooban iyo maxaa sheegayay videos iyo aan dhaadheereen inta badan waxa lagu isticmaalaa Telegram-ka smartphones-ka waaweyn ayaa lagu isticmaalaa dadku ay wada sitaan ama Android-yada waa lagu isticmaalaa talabaad oo kale PC-yada iyo computer-aadka iyo Mac computers-ka waa lagu isticmaalaa kan laakiin WhatsApp-ka la yiraahdo waxa lagu isticmaalaa kaliya smartphones-ka way jiraan in yacni wax la adeegsado oo WhatsApp web iyo la adeegsado oo la isticmaalo ahaan computer-kan lagu isticmaali karo laakiin intiisa badan Android-ka loogu talagalay laguna isticmaalaa hadday noqoto inta badan xagga privacy-ga ama xagga security-ga ilaalintiisa inta badan waa lagu ilaalinayaa waxaaga si sharciga baa lagu ilaalinayaa waana lagu support garanayaa inta badan waa aad iyo aad baa lagu ilaalinayaa hadday noqoto dhanka luqadaha inta badan Soomaalidu aad ma isticmaasho Telegram-ka laakiin waxa weeyaan qofkii isticmaala uu arkay anigu tusaalahaan oo kale luqadihiisa markay noqoto luqado badan ayaa support gareeya halka kan only English ay ka support gareyso oo ay taageerto dhinac oo ay ku base gareysantahay English kaliya hadduu noqdo dhanka yacni message-yadaadii iyo waxa diraysay iyo chatting-kii oo dhan waa temporary marka uu ka baxaya Telegram-ka waanada yacni waa iyadoo la eegayo ammaanka la ilaalinayo oo mobile ku lumi kara qof baa ka eegi kara marka waa temporary
unsecret chats buu leeyahay wax la yiraahdo. sidoo kale kan la yiraahdo whatsapp wuxuu leeyahay waa permanent, waxaagii sawiraantaadii waxaagii aad dirtay wixii oo dhan halkan iskaga jira baad arkaysaa. taasuna waa isbarbardhigooda. waxyaabaha uu aad iyo aad ugu hooseeyo waynu aragnay inay kamid yihiin gruubadiisa oo kontona whatsappka konton gruub buu qaadaa, laakiin telegramku wuxuu qaadayaa 200 oo gruub buu qaadaya 1GB baad ku diri karaysaa, laakiin kan video kooban baad ku diraysaa whatsappka. waa kombiyuutarada kodan iyo mac computerska waxaas oo dhan ma lagu isticmaalaa, laakiin kan smartphones ku badan yahay android iska. haddaynu eegno muuqaalada telegram wax la isugu diro sawiraanta oo kale haddaynu eegno halkan isaga waxaad arkaysaa inuu ka kooban yahay take photo, gallery, videos, file, location. waxaas oo dhan waxa weeye qaabka uu markaad wax dirayso qaabkaas oo kale ayuu yaqaanayaa. inta badan uu isqarinayaa oo waad arkaysaa isagoo isqarinaya. hadday noqoto dhinaca maxaa sheegay qaabka designka sidan ay labaduba yihiin sida inoo muuqata whatsappna waa noocyada telegramna waa nooca waa designka kaliya ta weeyaan. designkana runtii waana lagu kala duwanaan karaa xagga kani yacni uu ka kooban yahay calls iyo chats iyo contacts iyo telegramkuna runtii waxa weeyaan recordingka iyo all files oo dhan aad isku diraysa iyo yacni kan qaabka noocanina waa qaabka u eeg yihiin labadaba marka la isbar dhigayo waa laba messenger oo labadaba telegram iyo whatsapp ka yihiin. inta haddaynu ku dhaafno aynu taa kaga tagno waxa inoo hadhay inta badan ba dad badan oo aad iyo aad u isticmaala telegramka ammaankiisa aad iyo aad ba loogu sugay waana loo ilaaliyaa waana loo xafidaa isagaanay laasimeen. waxaa xam badan laga hayaa whatsappka in runtii barnaamij ay ahdo Balloon Bob 2 oo ku jiray Play Store-ka in laga saaray Play Store-kii Balloon Bob 2 sababta looga saarnaa ay tahay in lagu bisaasi jiray message-yada iyo fariimaha whatsapp ku kaydsan. sida banaan jirta waxa inta badan la arkaa iyadoo hacking lagu sameynayo inkastoo shirkadda ay iibsatay iminka loo yaqaano Facebook ay iibsatay oo aynu arkayno in Facebook iyo ay isku sawiran yihiin whatsapp iyadoo stocks ahaan ku iibsatay. taa marka laga yimaado waxa jirta sida banaanba waxa aasaasay shirkaddan telegram loo yaqaano laba nin oo walaalo ah oo la yiraahdo Novel iyo Nikolai iyo Buffalo kala yiraahdo. halka ninka Chrome la yiraahdo waa aasaasay whatsappka. telegramka aad badana looga isticmaalaa waana free voice calling free voice weeyaan inta badan aad ba loo isticmaalaa waana loo danayaa iyadoo loo eegayo dhinaca security-ga. taa haddaynu kaga nimaadno bal qaab ahaan aynu eegno sida ay tahay marka gudaheeda la galo isticmaalka labadan app la eegayo qaabkay noqonayso. anigu waan isticmaalaa labadaba waana igu jiraan mobilkaygu bal hadda aynu eegno labada app marka mobilka la galo sida ay yihiin. waxa weeyaan labada app way kala duwan yihiin muuqaal ahaan hase yeeshee labaduba waa laba messenger oo la isticmaalo oo ay caddahay in dunida aad looga isticmaalo gaar ahaan whatsapp ha bato laakiin waxaa lagaga awood badan yahay dhinaca privacy-ga. iminka kale tusaale ahaan haddaynu galno whatsapp haddaad markiiba gasho waxaad arkaysaa markiiba fariimaha dadka iyo waxyaabaha lasoo gudbiyey oo dhan baad arkaysaa. waana kuu muuqanaya runtii sida uu yahay qaabka uu dhigan yahay ku muuqanaya waanaad arkaysaa markiiba waad arkaysaa macnihii waxa weeyaan qaabkaas oo kale ayuu buuyahay waana aad aragtaa. laakiin haddaad telegram istiraado gal telegram waxaad arkaysaa markiiba markaad gudihiisa istiraado gal waxaad arkaysaa waa laga qarinayaa dhammaan gebi ahaanba fariimahaagii waxa aad dirtay. waxaa lagu leeyahay geli password wuxuu leeyahay password buu leeyahay ma geli karo imika ilaa passwordkii aan geliyo 1 2 3 4 oo kale markan geliyaad gelaysaa haddana waa laga qarinayaa haddii aanad awood u lahayn waa laga qarinayaa. run ahaantii qaabka noocaas oo kale ayuu eegyahay. marka inta badan ammaankiisa aad baa loo adkeeyey oo waa la ilaaliyey waanaad ka arkaysaa siday tahay. hase yeeshee whatsapp markii waad iska gelaysaa waayo macal telegramka wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo 2 step verification buu leeyahay aad baana loo adkeeyey dhanka ammaankiisa. galabta intaasaan idinku soo biirinayaa in la isticmaalo messengerada kuwa ugu fiican ugu tayada leh si sirteena iyo waxayna ugu kaydsamaan waa mid muhiima. aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaan asxaabteeda qaaliga ah meel kasta ku sugantiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. like iyo subscribe-ta iyo share-ta.